waa xusuus yar oo kooban oo ku saabsan idaacadda Horn Afrique maadaama la joogo xiliyadii loo dabaaldegi jiray ama sanad guuradii Horn Afrique 12 bisha 12aad December. magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed Xasan Cabdirasaaq Barduro. inkastoo hadda aysan shaqeyn 13 sano ku dhawaadna hawada ay ka maqan tahay, haddana xusuustu way mudan tahay in dib loo milicsado aas-aaskii ka soo wareegtay 23 sano. waxay ahayd 1999kii bisha 12aad 12keedii sanadkii dhamaadka ahaa oo warbaahintii u horeysay oo dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho si madax bannaan dhidabada loogu taagay idaacadda Horn Afrique. dalku dawlad ma uusan lahayn, waxaana la degay dagaal sokeeye. warbaahin bulshada wax u gudbisa oo madax bannaanna ma aysan jirin marka laga reebo BBC-da ama idaacado hogaamiye kooxeedyo ay lahaayeen ayna ka mid tahay Radio Muqdisho, codka shacabka, iyo kuwa ka horeeyay ay furteen hogaamiye kooxeedyo. Muqdisho waa ay kala xirneed, waxaana mar walba dhici jirtay dirir ujeedo ay u socoto aysan jirin oo macnaheedu uu ahaa qabiil. mar qura ayay bulshadu ka wareeshay FM hawada ku jira, waxayna noqotay idaacadda Horn Afrique. TV-ga Horn Afrique ayaa isna jiray. intaa kadib warbaahinno kale ayaa ku daysaday sida Radio Banaadir, STN iyo idaacadda Quraanka Kariimka IQK. intaba ayana ma shaqeeyaan, waxaana markii dambe ku soo darsantay Radio Muqdisho, codka jamhuuriyadda oo ku hadli jiray afka dawladdii Cabdiqaasin ee 2000 carta lagu soo dhisay. idaacadda Horn Afrique 99.9 FM waxaa ka bixi jiray BBC-da qeybaheeda sida Carabiga, Ingiriiska iyo Sawaaxiliga iyo Soomaaliga, ayana qeybteeda galbihii wixii ka dambeeya ayay bulshada u baahan jirtay. barnaamijyadii xilligaa la xasuusto waxaa ka mid ahaa barnaamijka Dood Wadaag, golaha garsoorkiyo weylii dadweynu aan ku wada dadaalno, darsi baan dhigayna u diyaar garoobo. waa astaantii barnaamijkii Dood Wadaag. barnaamijka habeenkii oo Baakaay uu daadihin jiray, barnaamijka maaweelada oo isbuuciiba hal jeer habeenkii bixi jiray, iyo kan isboortiga oo isna toddobaadkii hal habeen ka bixi jiray. Baakaay ayaana tibi jiray cayaaraha. barnaamijkii isboortiga iyo Baakaay muusigan ayaa u ahaa astaan. xulashada caweyska allaha u naxariisto Cabdal Nuuridiin ayaa lagu xasuustaa. waa barnaamij madadaalo ahaa. xulashada caweyska axada la daawado, wana fikra diyaaro idinku soo casuuntay dadweyno. barnaamijyo tayo leh iyo waqti kooban ayay ku bilowday Horn Afrique. markii dambe jadwalka waa la balaariyay, subax iyo duhur ayaa lagu kordhiyay, ayadoo markaa bulshadu ay la dhaceen. muusiga aad maqlaysaan ee heeska Horn Afrique ah waxaa ku luuqeynaya Bashiir Ibraahim Cabdi oo ahaa fanaan hore, iyo Shukri Muuse Weeliye oo Horn Afrique ka tirsaneed. markii dambena idaacadda Capital oo Horn Afrique ku lamaanay ahayd weriye ka ahayd. sanadu waa 2002. dabaaldegii markaasi Horn Afrique ayaana heeskan laga qaaday. idaacadda Horn Afrique dabargoyntii ay ku bilaabatay sanadii 2007 waxa ay la dantay sanadii 2010. gudaninta ayaan kusoo koobaya barnaamijkii aan ugu talagalay sanad guuradii idaacadii dantay ee weyneed Horn Afrique oo u horeysay warbaahin madax bannaan oo dalka jaanqaada kuna daysadeen warbaahinno kale gaar ahaan Muqdisho. waana xusuustii dabcan Cabdirasaaq Barduro. nabadgelyo. badowga habboon dadweynay ku hagtaa. badowga habboon dadweynay ku hagtaa. dad wadaagga aqoontiyo sibay bixisaa.